madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in uu ku guuleystay doorashadii ka dhacday waddanka Mareykanka laakiin dhinaca kale waxa uu sheegay in doorashada musuqmaasuq badan uu ku jiro madaxweyne Trump waxa uu wacad ku maray inuu aadi doono maxkamadda sare ee waddankaas si doorashadu markaas ay u noqoto mid cadaalad ah isla markaana guushiisa loo xaqiijiyo wali ay soconayaan tirinta codadka ayaa haddana dhinaca kale waxa wararku ay sheegayaan in madaxweyne Donald Trump uusan ku qanacsanayn sida hadda ay wax u socdaan madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in Joe Biden iyo xisbigiisu ay doorashada musuqmaasuqayaan codadka loo yaqaano electoral college ayaa ilaa iyo hadda Donald Trump waxa uu haystaa 213 cod halka murashaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden uu haysto ilaa iyo 238 cod waxaana muuqanaysa in Joe Biden hadda guushu qarku saaran yahay hadalka ka soo yaray madaxweyne Donald Trump ee ah in doorashadu isagu ku guuleystay isla markaana uu lagu shubtay isaguna uu aadayo maxkamadda sare ee dalka ayaan la ogeyn in xisbigiisu ay la qabaanayo in kale tani waxay imaanaysaa iyada oo waddanka Mareykanka uu ku jiro xaalad ka casnaan ah oo dhinaca doorashada fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena saar subscribe si aad u daawato xog walba halkan soo dhigno